waxaa maanta magaalada Hargeysa laga furay jaamacadii ugu horeysay oo u gaaray ilkaha iyo fayadhowrkooda waxaana la yiraahdaa jaamacadda Buubaal waxaana daahfuray gudoomiye ku-xigeenka jaamacadaasi Titoreysa Hibaaq Cabdiraxmaan Buubaal ugu horeyntii waxa goobta ka hadashay Titoreysa Hibaaq Cabdiraxmaan Buubaal iyadoo sheegtay in jaamacadani qaadan doonto arday cusub oo baran doonta maadada dantistaha ama ilkaha ummadda Soomaaliland ugu bashaareyno ina bilaabay qoritaankii ardayda dibcada koobaad ee jaamacadda Buubaal ama Buubaal University taasoo kulliyadda ugu horeysa ku bilaabay inay tahay kulliyadda ku takhasustay caafimaadka afka iyo ilkaha taasoo hadafkeedu yahay inaan isku dayno inaan daboolno baahida weyn ee dalka iyo bulshada ka jirta ee loo baahan yahay dhakhtarro qualified oo dalka u dhashay oo ku takhasusay cudurrada afka iyo ilkaha jaamacadan dhowr takhasus ayaan ku bilaabaynaa takhasuska ugu muhiimsan waxa weeyaan BDS-ka ama Bachelor of Oral Medicine and Dental Surgery oo taasuna ay tahay dhakhtarka ilkaha iyo takhasuska kale labaad ee ah dental hygienist iyo waxa kale kusoo kordhinay dental technician taas weeyaan waxa ku saabsan jaamacadda dhanka kale Titoreysa Hibaaq Cabdiraxmaan Buubaal ayaa shacabka Soomaaliland gaar ahaan caasimadda degan waxay ugu bishaareysay in qiimo dhimis loo sameeyo doono adeegyada kala duwan ee bixido xarunta Buubaal Center taasoo kalena waxaan ugu bishaareynaa ummadda Soomaaliland munaasabada furitaanka jaamacadda Buubaal University inay muddo bil ah bulshada u soo bandhignay in qof kasto ilkaha loo xulaya inuu qof kale uu keeni karo oo bilaash ilkaha lagu xulayo taas oo ofarkaas uu soconayo muddo bil ah oo ah muddada ardaydu isbarayaan Mustafa Sabriye qubanaha Facebook Muqdisho.